Soomaaliya noolaad Soomaaliya ma joojinaa Soomaaliya 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 وما سنتين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركب روحان ذكو سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن علي مروين مدن رئيس وزراء كحجان مدن وزير حل بأن ذا سفيرك قدك قمان قابضة dadweynaha aadka u qiimiga badan oo ka soo qayb galay madaxda Minnesota ee dawladda Mareykanka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay kulankan caawa sida wanaagsan loo soo abaabulay waxaan ka mahadcelinayaa dadaalka aadka u qiimiga badan iyo fursadan qaaliga ah oo caawa aan haysano sida aad la socotiin dawladda Soomaaliyeed waxay wadaa dadaal aad u fara badan ujeedaduna waxay tahay in xal la gaaro waxa jira xaalad adag oo dalku uu soo maray iyo xaalad adag oo dalku uu ku jiro laakiin inta aan gelin ka hor waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo dawladda Mareykanka oo runtii dadkaygii iyo shacabkaygii soo dhaweeyeen oo aad ka mid ka tihiin siiyayna fursad qaali ah inay nabad ku noolaadaan inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay helaan muwaadinimo waxa intaasi dheer garab istaageen dawladda Soomaaliyeed oo heegan u yihiin in Soomaaliya nabad lagu soo celiyo waxaan aaminsanahay kaalmadoodu inay tahay iyo garab istaagoodu laf dhabar waxaan rajaynaa inaad naga doontiin bridge-ka isku xidha labada dawladood sidaas oo kale waxaan u mahad celinaa madaxda gobolka Minnesota Senator Al Franke iyo Margaret Kalahani oo ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo maayarka gobolka oo runtii muujiyay qiiraha iyo qiimiga ay u hayaan dadka Soomaaliyeed ee halkan degan iyo dawladda Soomaaliyeed intaas kadib ujeedada aan idinku nimid waxay tahay in aan ogaano xaalkiina iyo xaaladda aad ku sugan tihiin idinkuna dhiiri gelino dadaalka aad ugu jirtiin midnimada iyo in Soomaaliya nabad lagu soo celiyo sida aad la socotiin dawladda Soomaaliyeed waxay wadaa dadaal aad iyo aad u fara badan oo ku wajahan Soomaaliya nabad in lagu soo celiyo caqabad fara badan waa jira laakiin kalsooni badan waxaan ku qabnaa in xaaladda adag laga gudbi doono ummadda Soomaaliyeed oo iskaashatana looga gudbi doono insha Allah ta'ala waxaa la socotiin dalka waxaa ka dhacay barakacaad u fara badan barakacaas wuxuu socday 18 sano la soo dhaafay maalin walbana waxaa soo baxay dhibaatooyin cusub ummadda Soomaaliyeed maanta qax iyo dhibaato uma baahna waxay u baahan tahay nabad iyo dawladnimo waxaan aaminsanahay garaadkeedii in la gaaray waxaan aad iyo aad uga xunnahay
dad Soomaaliyeed oo kaashanaya ajaanib isla markaasna ku dhex dhuumanaya diinta islaamka dadkii Soomaaliyeedna barakac iyo dhibaato ku ridaya ujeedada ay u socdaan ay tahay inay u gacan galiyaan dad ajaanib dalka waxa la socotiin dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiina boqolkiiba boqol dhibaato diin ku saabsanna wali soo marin qabiil iyo qabyaaladna waa ka soo gudbeen ilaah ku mahadsan maanta waxay joogaan xaalad dawladnimo cid kasta oo doonaysa inay marin habaabiso ummadda Soomaaliyeed qarannimadooda ay dhaawacdo sharafkooda ay dhumiso ka been sheegto diintooda sida aad maya u dhahdeenan maya u leena waxaad wada ogtihiin burburka Soomaaliya ay ku jirto iyo xaaladda adag ay ku jirto qofkii diin iyo damiir leh waxay ahaaday in wanaagga uu ka qayb qaato dawladnimada uu ka qayb qaato dib u dhiska dalka ka qayb qaato dadka dhibaataysan sidii loo gargaari lahaa mar haddii annagoo alla ku kalsoon subxaanahu wa tacaala ku kalsoon aragtideenna iyo midnimadeenna iyo soomaalinimadeenna iyo islaamnimadeenna aan u soo jeedno dalkeenna inaan ka difaacano cadowgaas ku soo duulay dadkaas waxay ku dambayn doonaan ilaahay idankiisa guul daro ayagaana shalay doona waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah in dadkii Soomaaliyeed lala dhex taagan yahay midi iyo qoray madaxoodii la guraayo gacmahoodii la guraayo lugahoodii la guraayo maalin walba la qaxinayo waxaa la socotiin afkaartan dalka la keenay inay tahay afkaar dibadda ka timid waxaana dalka Soomaaliyeed inaysan weligood ka dhicin dadka Soomaaliyeedna aysan aqbali karin waxaan leenahay culimo Soomaaliyeed oo diinta islaamka aqoon u leh waxaan leenahay aqoon-yahan waxaan leenahay odayaal dhaqan waxaan leenahay dad Soomaaliyeed oo rag iyo haween leh oo kala duwan oo dhaqanka iyo diintaba yaqaana in wiilal yar yar ay yimaadaan oo ay dadkii ka korboodaan oo culimadiyo taagan oo leh waxaan joojiya iyagu maalin walba dagaal abaabulaan waa arrin aan la aqbali karin waxaana insha Allah ta'ala dawladda qorsheedu uu yahay in lagu xalliyo cidii aqli leh in la hadlo cidii diin fahmaysa diinka in lagu la hadlo cidii intaas aan fahmayna in lagu qabto gacan bira waxaa la socotiin dawladdu muddadii koobnada ay jirtay waxaa laga soo horjeestay dagaal aad u fara badan ujeedaduna waxay ahayd meesha inay dawladdu ka baxdo oo kooxahaas argagixisada ay dalka la wareegaan laakiin falillahi alhamdu waxa lagu guuleystay dawladdu inay jirto dibna loo celiyo dadkaas Allahu akbar waxa la socotiin adduunka qola noolaa karta dawladnimo la'aan ma jirto bulsho kasta oo meel joogta kuma noolaa karto fawdo waa inay heshaan nidaam iyo kala dambeyn iyo dad madaxa oo shaqada qabta waxa la socotiin qora caaradiis inaan lagu maamuli karin shacabka Soomaaliyeed waa dad soo baroobay waqti dheer inay isdoortaan nidaamyo kala duwan soo maray maanta suurtagal ma aha kooxa iyagu is abaabulay oo shacabka aan ka haysanin taageero